إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم والله halkan waxaynu maanta bixinaynaa ilaaha qaadirka ah hadduu inoo idmo muxaadara midii ugu horeysay ee aan masaajidkan ka qabanno bacda alxabsi walmixan xadhig dheer iyo mixnad in fara badan markaana haysatay dabadeed iyo dacwad aada u ragaaday oo markaasi dagaal dhinac shishe iyo dhinac sokaba lagaga soo qaaday ayaynu dib u bilownay muxaadaradii koowaad ee ka baxda halkan muddadaasi dabadeed oo taariikhdu ku taariikhaysan taariikhda islaamka 1441 bishii afraad ee 23 bisha rabiicu thaani waxaanay waafaqsantay taariikhda miilaadiga ee gaalada oo in la tirsado aan ka digayno oo in loo dabaaldegaa aan ka digayno oo maanta la leeyahay waxay maraysaa 2019 markaasi bishii u dambeysay December oo ah markaasi 20keedii maxaan u dhahdaa markaasi lana sugayo 25 inay gaaladu u dabaaldegaan Christmas Day waxay ku magacaabeen oo inuu maanta khudbada kaga hadalay oo ay markay bishu dhamaatay ta kale ee markaasi ugu horeysa sanadkan ay bilato ay doonayaan inay iyadana markaasi dabaaldeg sanadeed u sameeyaan oo inuu inaguna diin iyo caado iyo dhaqan aynu ku waafaqno inagoo diinteenii markaasi qiimaha lahayd ee islaamnimo ee nebi maxamed loo soo dejiyay ay agteena ku dayacantay maanta mawduuca aan ugu talagalay halkani waa mid oo qusaynaya ama ku saabsanaanaya ruux kasta oo muslima rag dumar waayeel dhalinyaro waxaanu ku saabsan yahay bal inaynu tijaabino oo aynu talooyin ka bixino nasaaixna ku soo biirino iyo aayaad iyo xadiis sidee ayay u dhacaysaa inaynu ka guuleysano nafaha midda sharka badan leh ee xumaanta faraysa saaxiibkeeda sidee ayay ku noqon kartaa nafteenu nafta markaasi wanaagsan ee xasiloon ee daahirka ah ee dayibka ah naftu ay ku noqoto mid hoggaansan oo khaaliqii abuurtay iyo rabbigeeda markaa uu hoggaansan qodobo ayaan tilmaami doonaa oo aan ku soo aroorin doono wixii markaasi ku saabsan mawduuca nasiixada aynu bixinayno ee markaasi xoojinaya waxaan la hadlayaa aq kasta oo muslim ah oo xabiiba oo aan jecelay waxaan la hadlayaa markaasi gabadh kasta oo muslimada oo kariimada oo sharaf badan waxaan weydiinayaa su'aasha ah ma ogtahay oo ma ka warqabtaa cadawiyada aad leedahay ka kuugu daran xagga cadaawadda inuu yahay nafta adiga kugu jirta ee labada dhinac ku suran in naftaasi laga guuleyso laga adkaada waxa ay markaasi ka daran tahay cadawgaaga inaad ka guuleysato ayay ka sii daran tahay haddaad arrintaa aqoonsato waxaa lagaa doonayaa inaanad ka tegin cadowga xaqiiqada ah oo nafta kugu jirta ah taasoo ku waswaasisa xumaanta kuu qurxisa ilaaha abuurtayna uu og yahay waxay kuugu warramayso iyo waxay kugu waswaasinayso waanu kaaga digay khaaliqii naftan kugu jirta abuuray
ربي وحا أوليه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إنسان كوانو أبورني نفبان قلينا وحانا كأغنهي نفت مركز كجرتا مركز أي ورميسو انتانو قهدلين وحانا ندرني ملائك حبل الوريد كيبها لها مركز هالبولياش بيبوفلياش ليرادو هم قولي هاريرها كاميرا وقدو نفط مركز عدوغا كو انت كتغتو هوسي طلابين مركا كوادبا عدوغا ضعيفكا عدو ضعيفنا وينو لeenahay oo waayo waa qolama shaydaan baa la yiraahdaa shaydaankan ilaahay wuxuu ku tilmaamay in kayda shaydaani kaana daciifa isaga dhagartiisa iyo shirqoolkiisu waa itaal daran yahay haddaad naftaada ka adkaato isaga kiisu waxba maaha kaasi waa qodobka koowaad aynu halka markaas ku gurudno qodobka labaad ee uu gudbayna waxa weeyaan nafahani markaynu quraanka kariimka aqrino waxa ay u qaybsamayaan saddex nafood aadamaha dhamaantii naftan uu haysto saddex bay u qaybsamaysaa qaybteeda koowaad waana mid aynu maanta u ballansanahay dagaalkeeda hadii ilaahay markaasi inoo siiyo awoodeeda waa qaybta la yiraahdo al-amaratu bisuu waxa ay ku faraysaa waxa xumaanta oo dhan waana mid uu ka adkaado ka qaarib noqday inay raacdo hawadeeda dunuubta ay ku dhacdo macaasida ay samayso sida ilaahay uu ka waramay gabadh la yiraahdo Saliikha oo ahaa Aziiz Misra oo qabay waa gabadhii adoonsatay Nabiyullaahi Muusa calayhi salaam waa gabadhii sababteeda ku galay jeelka oo uu ka soo dhaxaweeyay isagoo nabi ilaahay doortay oo nabi dhalay Nabiyullaahi markaasi Yuusuf waa gabadhii quruxdii ilaahay uu siiyay ee markaasi uu ugu deeqay ku bedeshayna ilaahay caasido faaxishana u diyaar garowdo nabiyullaahi yuusufna ay damaacido ilaahayna uu ka badbaadiyay markii uu ka cararay arintii markii ay fashilanto arintaas sababteeda jeel u galay isagoo oo bari'a oo waxba geysanin ay arintii markaa aqoonsatay iyadoo ka soo laabanaysa xumaanteedina qiranaysa ilaahay quraanku kaga waramay wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la amaratun bis-suu illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim waxay tidaanu naf ma bariyeelayo naftu waa xumaanta markaa fariid badan ee nafaraysa inta ilaahay u naxariistay in baa ka badbaaday rabbina waa ghafuur rahiim waxay ictiraaftay eedda inay leedahay nafteeduna ay tahay xumaanta faraysay culimada tafsiirka ayaa waxay dhahdeen sida markaasi sicdi oo kale macnaha waxay tahay kathiirul amri li saahibiha bisuu ay faahisha wasaa'ir dhunub naftaasi waa tii fariid badan ee faraysay xumaanta oo faaxishada iyo dambiyada inteeda kalaba ayay amraysay waxaanu ku tilmaamay fainaha markabu shaydaanku markab buu leeyahay uu fuulo markuu ku soo weerarayo waynu naqaanaa gaaladan iyo cadowgani adduunyada maanta ummadda islaamka dhibaya baarijaadka iyo markaasi baalaha badda dhexdeeda maaxa iyo kuwa dusheeda mara iyo daa'iraadka shaydaanku technology-ga iyo markabka uu fuulayo soo raacaya markuu bini aadamka weerar ku soo qaadayo waa nafta isaga ku jirta waxa markaasi iyada lafteeda albaabkeeda aanu qofka ka soo galaa markuu qofka fasahaadinayo taasi waa nafta markaasi aynu doonayna maanta inaynu ka takhalusno talabaad waxa la yiraahdaa lawaama waxayna ka koobantahay nafaha aadamaha oo dhan mid wanaagsan iyo mid xunba way u qaybsantaa lawaama waxa loogu magacaabay way isbedbedel badan tahay way midabayn badan tahay hadaba yaraatay xaalad ay ku sugnaataana ma jirto oo ay ku xasishaan oo maxaa sida loo leeyahay waxa ay markaa canaanataa saaxiibkeeda wuxuu sameeyo adduunyadan iyo aakhiro hadday naftii markaa daalimada ahayd aakhiro markuu tago way canaananaysaa nafta muuminkana adduunyada markuu joogo way canaananaysaa oo waxa uu markaasi ka gaabiyay way ku canaananaysaa hadduu xumaan ku dhacana way ku canaananaysaa sida culimada markaa ibnu Uthaymin iyo kale ay tilmaameen waana nafta marna dabaabta ee dambiga ku dhacda marna toobad keenta khayrka way samaysaa sharkana way samaysaa laakiin markay sharka samaysay toobad keentay Allah soo noqoto ayaa lawaamo loo odhanaya waa tii canaan la timiyay qofka markaa saaxiibkeeda canaanta markaa uu la timiyay ka waanisay xubaantii rabbigeed baa waxa uu ku dhaartay naftaasi wala uqsimu bin nafsi lawaama ilaahay waxaan ku dhaaranayaa in nafta canaanta badan leh waa mid aan ka soo sheekaynay nafta qaybta saddexaad waa mid aan doonayno teenu inay ku rumowdo oo nafta la yiraahdo nafsul mudma'inna waana mid markaa jecel khayrka iyo samafalka ee doonaysa inay samayso waxay necabta sharka sayi'aadka macaasida waanay karaahiyeysataa naftani waxay ogoshay oo ku degtay ku xasishaa ilaaha markaa iyada abuurtay gargaaraheeda waxaanay markaasi ku xasishaa oo ay ogoshay rumaysantay abaalmarinta iyo jazaaga uu bixinayo waxaanay arintaas u noqotay dhaqan iyo caado
iyo markaa hanti ay leedahay oon haba yaraatee dhib ku ahayn inay khayrka samayso sidaa darteed baa waxay dhexlaysaa in loogu yeedhan markaasi naftii markaa raadiya mardiya tii ilaahay raalli ka noqotay ilaahayna raalli geliyey rabbina subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay qur'aanka naftan iyada ah yaa ayatuha nafsu lmudma'ina irjici ilaa rabbiki raadiyatan mardiya fadkhulii fii cibaadii wadkhulii jannat aayaddan aynu markaasi hayno ee markaasi ilaahay uu ku sifeeyey nafsa la yidhaha almudma'ina ee ilaahay uu kula hadlay naftan ee xasiloonay u laaba xagga rabbiga waa mid raadiya oo raalli geliyo raalliya lagana raalli noqday gal addoommada markaa saalixiinta jumladooda gal oo jannadayda ayuu ilaahay ku odhan doonaa maalinta qiyaamaha dal awliyada ilaahay ka mid ah aayaadka baa lagu akrinaya haatif baana akrinayay waxaa ka mid ah cabdillaahi ibni cabbaas saxaabigii jaliilka ah waxaa ka mid ah axmed ibnu xambal markii naftu ka baxday ee iilka markaa qabrigiisa la dhigayey ayaa hawada waxaa laga maqlaya aayaddan qur'aanka suuratulfajri ka mid ah oo lagu gelbinayo ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu inagana nasiib inoo siiyo ta saddexaad tallaabada qodobka saddexaad wuxuu yahay tallaabada ugu horrayseenna laga rabaa waa inaynu markaa ugu horraysa naftan inaynu ka guulaysanno ma awoodi karno jeer aan rabbi kaalmaysanno oo aynu rabbi ka tuugnaynu barinno inaanu iyada inoo tala saaranin haba yaraatee walow laxdad keliya haddana ha noqoti sida nebi maxamed almustafa alxabiib sala allahu calayh waali wasalam uu inoo sheegay allaahuma raxmataka arjuu walaa takilnii ilaa nafsii darfata cayn waaslix lii sha'nii kullah laa ilaaha ilaa anta ilaahayo waan rajeeyey raxmaddaadaan damacsanahay waxaanaan kaa dalbayaan kaa doonayaa naftayda inaanaad markaa iyada ii tala saaranin haba yaraatee ilbiriqsina ha noqotee waxaan ku weydiisanayaa rabbi ow xaalkayga iyo sha'nigayga inaad ii hagaajisaad suubiso waxaanan ku dhawaaqayaa towxiidka laa ilaaha laa macbuuda xaq ilaa anta mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin adiga mooyaane ibnu xibbaan saxiixiisa ayuu ku wariyey abu daawuud iyo nasaa-ina way soo saareen sunanta sheekh alalbani waa xadiis xasana buu yidhi marka naftii waxaa la doonaya inaad ilaahay u kaashato adigoo rabbi baryaya maxaa lagaa rabaa markaa horta tadhiiruha min aradaa'il waxyaabaha dhaqan xumada ah iyo akhlaaqda liidataa in laga dahiro in laga abaydimiyo laaca iyo hawada iyo shahwaadka ay jeceshahay inoo go-aan looga dhigo inay ka markaa godo oo ay ka fogaato waxaa macaasida leelay gacanta ku hayso nafta waxaa loo diyaarinayaa in ay qaado dariiqa istiqaamada ee ku toosan jidka iyo tubta ilaahay addoommada u jeexay ana hada sabiilii mustaqiiman ana hada siraatii mustaqiiman fattabicuuh walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiili dariiq buu ilaahay jeexay qur-aankaanu ku sheegay kaas baanu dadka u tilmaamay dariiqa hadday raacaan kuwa kale way ka badbaadayaan haddii laakiin ay ka baydhaan duruqda shaydaanka ayay ku lumayaan qodobka afraadaynu maanta arrintan ku bixinaynaa waxay tahay maxaa waajiba markaa naftan waynu barannay waxa markaasi loo hogaaminayana waa loo sheegay maxaa waajib kugu ah qof kastoo muslima waxaa la doonayaa inuu jihaad qaado kelmu jihaad waa kelmad markaa meelo badan gasha waana kelmad markaasi dadaalka iyo markaa mashaqada oo lagu bixiyo shayga markaa qiimaha leh ee la doonaya in la gaadho taa waxaa la doonayaa in lagu bilaabo waxaa jihaad la yidhaahdo oo dhanba nafta in lagu bilaabo nafta la yidhi markaa waa ta xumaanta ku amraysa ee kugu waswaasinaysa waxa shaydaanku jecelyihin waxaa la rabaa nafta inay hoggaansato una dullowdo si ay u marto dariiqa toosan ee tubta markaa jannada loo maro kana joogsato inay leexato daacada rabbi oo ay u tallowdo macaasidiisa oo ay adeecdo kii cadowga u ahaa waa naf jeclaanaysa oo adeecaysa midka iyada cadowga oo shaydaanka rajiimka ah nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi innii taraktukum calaa mili albaydaa warwakaa waan idinka tiga xaqii baan caddeeyey kitaab baa laydiin soo dejiyey sunnihii fasirayeyna waad haysataan dariiqo oo markaasi waadaxa oo cad baan idinka tegoon qallooc lahayn liiluhaa ka nahaarihaa laa yaziiqu canha ilaa haarig habeen iyo maalin ma kala laho qorax baa u duntay iyo qorax baa u soo baxday iyo mugdi baa yimi iyo waa habeen iyo waxba la arki maayo dariiqadani male mar walba waa dharaar waadixa oo cad kama lumayo kama leexanayo aniga dabaday dariiqa aan idinku dhihi soo raaca cid ka hawowdaa ma jirto ilaa mid ilaahay halaagayo mooyaane ka ilaahay halaagayo dariiqii nebi maxamed loogu taageli maayo calayhi salaatu wasalaam haddaba waa xadiidka abi caasim soo saaray fi sunna albanina oo saxiixiyey في السنة صحيحية لكن وأرن أدق إلا أن يعينك الله على هذه النفس الأمارة
ورنفط إله كهذه اليوم ويكما أتكان كرتيب لأنه وحيابا شهوات كي تعيش بوحة أرضها ريره إذا كبوحة لأن بهرك الشيطان كالله يراهضه يشقاره سا أيها أبوك المين ينفطه إن عسيانك كل عليه الله عاصده إن إضاعتي واجباتك كتكتو بهرك الشيطان كي ملعونك إلهي نعدشي سكتوري إن عدشو بركا كل علي كما الدار إنه نفطه دي رجليو سير ربي وقعاسي قروده طريقة كستا هي وسيلة كستا أيو صور راعية وصائل كيسلوي بدين شيطانك قضب كالشناد إنه مثلا كويغينا وحو يهي haddaba waxaad u baahantahay cadow baad la dagaalamaysaa cadowgu waa kee mashisheeya waa cadow gacala oo sokeeya ah oo adiga jambiga ku suran oo naftaada ah cadowgana la dagaalamayso hub baad u baahantahay haddaba silaax iyo hub baad u baahantahay aad kula dagaalanto haddaba hubka aad kula dagaalamaysaa maanta lagu tilmaamaya ee kuugu kaalmaynaya inaad la jihaado iyada waa maxay waa inaad kula dadaasho waxaa la yidhahdaa cilmiga naafica ah nafta inaad jaahilnimada ka saarto oo cilmiga naafica ah waa kee oo waxtarka leh waa cilmiga kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam ee mudaharka ah oo loo barto loo fahmo sidii iyo dariiqadii saxaabada rasuulku ugu tarbiyay iyo fahamkii ay quraanka iyo xadiiska ka qaateen dariiqaasi waxa lagu taabacayaa saxaabadii ridwaanullaahi ta'ala calayhim wasaa'ir alqurun almufaddala iyo qarniyadii kale fadliga badnaa ee iyaga kamid ahaa kuwaasi siday quraanka u qaateen iyo sunnada baynu u qaadanaynaa haddaba khaaliqa naftana abuuray ayaa ugu cilmi badan oo yaqaana waxaanu yidhi qul anzalahu alladii yaclamu sirra fi samaawaati waalardi innahu ghafuurun raxiim ilaahay sirta samada joogta iyo dhulka ee sirta naftaadu ay ka mid tahay waa ka isagu markaasi og waa kana quraanka soo dejiyey ee isagu markaasi u soo dejiyey hidaayadeedii رب سبحانه وتعالى وحليه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه إلهي وحو كور قبا وحا نفتي إنكو سغني كالدكتور هذا إلهي نفتي إنه ينوغو جرتا أيو إنوغو مركاسي أقوم بدني أو إنوغو علمي بدني إلها سرتي هذا هو سيقانا إيه وحا يكون فقايسي هذيك كوكولا فقايسي أيا وحو أغي وحا مصلحة دواء الدنيا آخرة إيا الشيء مفسدة دواء إيه يدها لاقا يا الدنيا آخرة وإله قرآن كريم كسودة النبي محمد وحيودي سنها فسر إيسا قرآنك كتاب كي نفتا لوغو تلقلي هداية ديدو كسو قنطي الليبان ديدو كسو قنطي إلهي سبحانه وتعالى وحليه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون وحي وذكري كانوا كسودة النبي ووحي قرآنك maxaa loo soo dajiyay waa inaad dadka u cadayso wixii loo soo dajiyay quraanka tafsiirka quraanka waxa loo doonanayaa sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam halkaas baa la doonayaa dabeedna dadku inay kala kulmaan aqoonta iyo cilmiga iyo dalaashi oo ay fikiraan markaa dabeedna si ay u gaaraan cilmiga markaas iyo aqoonta markaas iyo sirta ku duugan waxaana maanta la doonayaa sunnada kitaabka inaynu markaa isku fasirno oo aynu fahmno sidii saxaabada laakiin hadda maanta durbaanada la tumaya waxa kamid ah in la kala gadoomiyo la kala jaro quraanka iyo sunnada oo la yiraahdo sunnada dooni mayno laakiin quraankaanu qaadanayna hadday sunnadu quraanka hoos timaado oo aayadu waxay ka hadashay ay iyaduna ka hadasho way iswaafaqsan dib male laakiin mar hadday xukun gaar ah binaynayso iyo wax gaar ah tafsiir la imanayso ma aqbalayno nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam kitaabkana loo soo dejiyo la soo raaciyay isagu inuu dadka u fasirano wala doonay wuxuu ku fasirayna waa sunnada waxaanu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam ala inni utiitu alquran wa mithlu ma'a laba shay baa la siiyo quraan la yiraahdo iyo mid lamida kan lamidina waa wixii oo waa qolama waa midka la yiraahdo markaasi in sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam dhalinyaradeeniba maanta la habaabiyo rag iyo dumarba waxaana lagu leeyahay waa khilaaf badantay sunnada iska daa looma baahna بخاري قاعد وقيد مركز أها إمام كقرآن إمام ومركز أهل الحديث كتاب كقرآن كان مركز اللي جاي ماده كتاب سنة لوجو كالسوني بدأيه هاي ويمدوا قبول قاب بشيء مجرو والله من كتاب صحيح البخاري كيف ضاقد لقى طوريا وأحكامته شيء جيو مركز اللي لا يحببك مجران حكم كي مركز ردده أحكامتي الرجمجة يكوي كلا لمدنها رجع مركز يضمرك يحقوق ده مركز منزلات كلا لا يهين iyo wixii lagu cadeeyay bay gaashaanka ku dhufanayaan say gaalo u waafajiyaan mabaadideeda markaas kufriga ah diintoodana ay markaas u inxiraafiyaan dhalinyaro badan oo aqliga laga xaq
ilmo yaroo la leeyahay adiga waxba ma garanaysid islaam laguma dhasho waa inaad gaadho 18 gaadho aabbaha iyo hooyada dafirto dhinaca doonto u jeesato oo aad ilaahay aaminayso wuxuu yahay ka fikirto muxuu ka sameysay caynku eegyahay muxuu yahay maxaad ugu qarinaysaa itus itaabsi waa ilaahay halkee jooga waa maxay markaas aad fikri doonta inta aabiyo hooyo ku nool yihiin 18 jir aad ka yartay dameeridaan raacday baa tahay aqli ma lihid doorasho ma lihid qaar baa run mooday dhalinyaro run mooday China ka yimi dhalinyaro run mooday Hindiya ka yimi dhalinyaro run mooday Yurub ka yimi dhalinyaro run mooday duwal islaam sheeganaya oo la inxiraafiye manaahijtooda oo Suudaan ka mid tahay kuwa badan oo ka soo noqday ayaa ka mid markaas weeyaan oo kitaabkii iyo sunnadii sidii loo fahmayay si maqluuba loogu soo shubay xadiiska nabigu wuxuu inoo sheegay aayadda horena uu ku waafaqayaa inay kitaab iyo sunna jiraan labadabana loo soo dajiyay hidaayada nafta aynu ka hadlayno wa xadiiska Daarimi iyo Ahmed iyo Abu Daawud iyo Tirmidhi ay soo wariyeen Maaja Albani uu saxiixinayo markaas weeyaan sunanta Abu Daawud iyo khayrkeed haddaba aqoon in loo yeesho la bartay cilmiga kitaabka iyo sunnada waa dariiqa kaliyaata ee lagu ogaan karo sifooyinka Ilaahay raali geliya sifooyinka ay waajib tahay qof kasto muumin inuu ku sifoobo sida oo kale waxa marka halka laga garanaya laga qaadanaya kitaabka iyo sunnada marka aqoon loo yeesho sifooyinka xun ee Ilaahay ka caraysiya sifooyinka ay leeyihiin lagu yaqaano cadawiyada Ilaahay aynu ka digtoonaanayno gaalada munaafiqiinta faajiriinta ee faasiqiinta calamaaniyiinta balaaya jinniga iyo aqlaaniyiinta marta biladiinka ah waxaasi sifooyinka ay leeyihiin halka aynu kaga diyaar garoomayna waa kitaabka sidaa darteed kitaabka iyo sunnada rasuulka kaleey salaatu wasalaam labaduba waa laba haadi oo hanuuninaya adoomada Ilaahay ee muttaqiinta la yiraahdo waxaanay ku hanuuninayaan dariiqa toosan Ilaahay baa marka suuratul baqara quraanka markaasi markaynu bacda al-faatiha akhrino maxaynu ku furfuranaa alif lam mim dalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin Ilaahay subhanahu wa ta'ala xurufta muqaddaca isaga ayaa muraadkiisa yaqaana wuxuu uga jeedo arintaas kitaabka quraanka baa lagu tilmaamay maktuubka Allahul Mahfuudka suxufta malaa'ikta iyo qardaaska aanu haynay inaga ku qoran waxaan shaki lahayn xagga Alle inuu ka soo degay oo waxaan shaki ku jirin inuu hanuun u yahay dadka ee muttaqiinta ah dadka muttaqiinta waa ayo waa dadka amarka Ilaahay u hoggaansamay wuxuu u diiday ka tagay qodobka lixaad ee aynu mas'aladan maanta ku dabiibaynaa waxay tahay waxyaabaha naftaada jihaadkeeda kuugu kaalmaynaya waa inaad ku sandulayso amal saalixa mar hadaad cilmi yeelatay thamaratu ilmi al-amal cilmigu wuxuu u baahan yahay amal fal amalkuna waa inuu saalix noqdo oo shuruudii ee aasaaskii laga rabo iimaan inuu yeesho laga rabo inuu ikhlaas iyo wajiga Allah u sameeyo laga rabo inuu sharciga waafaqsanaado amalka saalixa kitaabka iyo sunnada laga qaadanaya ilaahay baa insaanka ugu baaqay dariiqa mustaqiimka nabi maxamed inuu markaas raaco دائما نقفك الإنسان كهو من سعي عمل الله من حركة دقائق من حصل يا ماها الدنيا ينتو تشوف يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إنسان وأدداري صحك الربي ما ردو ينتو هون دونتا عمل كاقية كدحي كاقية سعي قابو وحاو كل ما ندونا حق الله سبحانه وتعالى الله نواد الله كل مي عمل كاقنا نواد الله كل مي معناها السعي إنسان كي عمل كيس واهلك مآلك وتجيا أو كوب جبابيا سكة صيد ظروفتي سنقطه وحق إلهي أضونك بحسن كلام جرو لأنه ودي منا يا أضونكو مركا ودي انتنا حقول الله بنايا وحول الله بنايا حق الربي لكن وحق الله بحسن قفك فرق باود حيا مضيع إلهي سأضيعي السنة الرسول راعي عليه الصلاة والسلام يقفك فاجرك فرق باوك لا دحيا مضيعة وحو سمينا يقفك ضاعة الله يمنيا عمل بو سمينا يا إلهي رالك النقضاء أو قارسينا يا إلهي مركا رالي هانتيسا يا جنديسا مالك قياموي كي عاصقها عمل بو فلا كعريسينا يا إلهي لكن ماشا وكنت هنا يا وحق الله إلهي بنجسينا يا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وحاكم ذها وحديث كقيم كم ذا رسوق هذانينا كل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها أو موبقها تذكر مركز قرح بحد واجه صلاة الصبح على تكذب دبده ويك الله يعني حوله ذي يدنه ذنواك الله متكسر كم يدوحوا إبنيا نفتي سو إبنيا إبكاسنا وحوا كسر جبابة يا إنه نفط حرية شيطان كي كحرية مركا عمل كيسا ونارته كحروبه إيه إنه هراجه والشيطان نفته وديبه ده بدنا عمل كي نارته وسميه نارته قالوا معنوه نوح النقلية
qofka adduunyada ka saahida ee aakhiro doorta naftiisa rabbi ayuu ka iibiyey zamanka uu bixinayaa waa adduunyadii uu nacay si uu naftiisa u xoreeyo dabeedna wuxuu noqonayaa kii xoreeyey qofka aakhiro iskaga saahide ka taga ee adduunyada doorta kaasi naftii markaasi waa uu markaasi halaagay oo waxa weyn aakhiradiisii buu iibiyey adduunyadiisii iyo naftiisa ayuu doortay wuxuuna noqonayaa muhlikuha kii isagu naftiisa halaagay oo huwa dhaalimuha dabcan mar hadduu naftiisa naar u hogaamiyey de naftiisa isagaa dulmiyey waxaana markaa macnahaasi uu ku soo arooray ilaahay subxaanahu watacaala qowlkiisa yihi wanafsin wamaa sawaaha faalhamaha fujuuraha wataqwaaha qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha ilaahay waa uu dhaaranayaa naftuu ku dhaaranayaa iyo khaaliqa sidan u ekeeyey ee khalqadda iyo fidradeeda dhammaystiray ee simay ilaaha markaa u ilhaamiyey labada camal midkay samaynaysa faajirnimo iyo taqwo labadaba ilaahay subxaanahu watacaala isagaa ilhaamka iska leh waxaanu rabbi leeyahay dhab ahaan waxaa guulaystay oo liibaanay axadka naftiisa dahira daacadaa lagu dahiraa cibaadadaa lagu dahiraa akhlaaqda wanaagsan baa lagu dahiraa cilmiga kitaabka iyo sunnada ayaa lagu dahiraa waxaa hoogay qofka naftiisa qariye aasay macnahu waxa ay ka dhigantay qofku markuu cilmi yeesho ee uu camal saalixa la yimaado ee uu akhlaaq dayiba markaasi kasbado nafta uu kobciyo kor buu u soo saaro meel dheer buu geey hadduu qofku nafta jaahilnimo iyo camal sayi'a u celiyo kaanaa inuu turaabka iyo carrada ku aasay laba qaybood baa halkaa ka soo baxay qaybta hore waa qaybta naftooda ilaahay ka iibiyey qur'aanka ayaa inoo tilmaamay rabbina waxa uu leeyahay ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna ilaahay waxa uu ka gatay muuminiinta nafahooda iyo adduun waxay haystaan intiiba wuu ka iibsaday bedel baanu siiyey ciwadku muxuu yahay iyo bedelku waa inay janno galaan nafta waxay ku bixinayaan maalka waxay u bixinayaan wax ilaahay jecel yahay iyaguna waxay bixinayaan wixii ay haystaan waxa ugu qaalisanaa dabeedna ilaahay wuxuu siinayaa waxaan camalkooduba gooyeen oo janno la yidhaahdo markaasi weeyaan qolada labaad iyo sifaga labaad naftooda waxay ka iibiyeen ilaahay qayrkii shaydaan bay ka iibiyeen adduunyay doorteen aakhiray iskaga tageen bal iyaguna ganacsigooda halkuu ku dhammaaday eeg ulaa'ika aladiina ishtaruu dalaalata bilhuda famaa rabixa tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiin kuwaasi ee laga soo sheekeeyey munaafiqiin bay ahaayeen waanay joogaan goor kasta iyo goorya ayaanba adduunyada ilaahay ma badiye beledkeennana way ku badan yihiin kuwaasi ee munaafiqiinta la yidhaahdaa waa kuwa doortay ee beddeshay ee iibsaday dalaalka hanuunkii bay ka tegeen baadinimo iyo habow ayay qaateen kuwaasi way ganacsadeen waxay iibiyeen waa hanuunkii waxay soo gateenna waa dalaal iyo baadinimo hadda kuwa tijaaradoodu may macaashin ganacsigoodu muu markaa kordhin oo muu kobcin manay noqon kuwii markaasi dariiqa markaa saxda ah ku hanuunay imaamkii xasan albasri lo odhan jiray baa waxa uu leeyahay sida jaamic fii sharxi اlarbaciin ku taalla waxa uu yihi almuumin fi dunya kalasiir hadduu qofku muumin yahay adduunyada waa maxbuus la qabtay oo kale dee rasuulku waa kii inoo sheegay inay tahay markaasi in addunya sijnu lmuumin wa jannatu lkaafir inay adduunyadu xabsi u tahay muuminka kaafirkana ay janno u tahay naartiisa aakhiro marka la eego tan iyo dhibaatada adduunyada janno u noqonaysa muuminka naciimka aakhiro marka la eego tan iyo markaasi adduunyada xataa barwaaqad u haystaa xabsi bay u tahay wuxuu yidhi qofka muuminka adduunyada waa maxbuus la haysta ah wuxuu intaa ku dadaalayaa uu doonaya yascaa fikaaka raqabati qoortiisa inuu xoreeyo macnaa naftiisa inuu xoreeyo ayuu markaasi intaa u dadaalayaa laa ya'man shay-an xataa yalqa allah wax walbana wuu ka baqanayaa fidnadeeda iyo dhibaatadeeda oo waxa weeyaan shay keli uu aaminayaa ma jiro jeer uu ilaahay la kulmo maalintuu aamin noqonayaa oo abni helayaa waa goorma waa maalintuu ilaahay la kulmo qodobka ugu dambeeya ee aynu ku soo gebagabaynaynaa waxa uu yahay haddii qofkii muslimkaa naftaasi shaydaaniga ah ee xumo falowga badan ee xumo faridda badan uu ka guulaysto wuxuu awood u yeelanayaa inuu u yimaado wixii ilaahay u soo dhoweynaya rabbi subxaanahu wa tacala xaggiisa u dhoweynaya sida nebigu inoo sheegay calayh salaatu wasalaam almujaahid man jaahada nafsa fii sabiili illah dadku maanta waxay ku odhanayaan hebel waa mujaahid hebelna waa shahiid horta maxaa jihaaday maxaase shahiiday wax jihaaday
يوح شهيدي الضمود ما كلا يقانين إلهي ما كلا يقان نبي محمد با يقان عليه الصلاة والسلام هذا ما waxa weeyaan mujaahidka ee jihaadka xaq ah ku taagani ee talaabada koowaad ee jihaadka bilaabaya waa ka naftiisa la jihaaday muxuu kula jihaaday fi sabiilillah waxa la wixii daacada rabbi oo dhan iyo diinta ilaahay kor loo qaado imaam ahmed baa wariyay albani sahih al-jami' ayuu ku saxiixiyay xaafid ibn rajab rahimahullah tafsiirkiisu ku sheegay wuxuu leeyahay bal u fiirso faman kanat nafsuhu sharifa وهمته عالية لم يرضى لها بالمعاصي قفك هايستن نف وناكسن وشرف له وهمدي سنايتها هم الرئيسة هم يرو بريسة هم يرو مودرة هم يرو درهمة هم يرو منصبة هم يرو درهم يشيلنا أي لو ذور وريجيسة سيدوني سيد يقول قاعدة الدنيا آخر كيف يكون سيكون عايز أمرك قفك وينه هم عالية يجو هم ذا دوام حي ميل صري ماشي سرواها كي فردوس الاعلى جنده سري فردوس لا يراهو تا وين طلبته وجودكاغي ددالكاغا ku dalabto فردوس الاعلى تا وين ku raad sabir kasbay qofka caynkaasi buu dhibhay muxuu sameeynaya lam yarda laha bil maasi naftiisa uga marra li noqday ilaahay caasido ma uga raali noqonay fa inaha khiyana in ilaahay caasida waa khiyana ka waran haduu sayid maalku dhiibto أو أهل كوا آمنوا وأولاد كوا آمنوا بير كوا آمنوا دار كوا آمنوا دنيا كوا آمنوا وسيدي اللي قام رئيسي كجديسن سميسو أو كو مركزي أضيعه عند إستجا مركزي كاج عدوه أو ميرانو كورن مركز بيحي أما كنت تصرفات كو سميسو ما حد كفي ليس سيد كاجا مياد خيام يسها هذا جزاء الله كل ما يساويه وخالقك وأبورتم حد مرن يسهادات خيام يسو سيدنا وخيانة بني مركا إمامكم ولا يرضى بالخيانة إلا من لا نفس له وحا خيانة السماية من النف بكتشر نفله أو حي أنا كبتشر با خيانة إلهي ولكعة بل إلهي وحي كدقى أهون الناظرين إنه قدنا بشرة كل من هذا الخضاء قف نفتي ستسكين كرام متشرو كلنا ووذا قفنا ووذا دبابنا إلهي أكتينا عين كيبو كيها بشر كواد كحشون حتى وحي هرجوغا هرراها مريا إنسان كوان احتراميا وحيابان هدو يقو أركو إلا يابيا حتى إلها كطالعانا يا قلبي قاقي اللابتا هذا وحي كجرة طالعانا يكور النفط هذيك كجرة وحي كوغو شيكين يسكور هيا بل كور رداد خيام يسو إلهي سبحانه وتعالى وعافيس بدني وانا حليم انتا سان إلهي مركاسي عاصينا حتى من نفط هاسيحن أينو بانت دوني إنو إنو كا تخلصنا وإنو كقوليسنو وحي لذي صفات حن ترى صفات كايا إن بريا إيمان با إن بريا أئمة السلف ككملة ولا هذا مركزي الإمام علامة ابن القيم رحمه الله تعالى نفتح إحمها كفريسا صفات كي لا هاي نفط هذا صفات كذا ما تبرو أنا أقول نفط إذا برنا يا صفات كذا وحاول لا هاي فوائد كتاب لله الفوائد وكذا الله يا مركزي صفحات مركزي اللي إحنا يصدح سبحان الله وتعجب إلهي بو مركاه نسهي وحمكه وحوري مركا في النفس كبر وحسد في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان الثمود وجرأة النمرود واستدارة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهوى بالعام وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل وفيها من أخلاق البهائم ويصوص عطاء نفط وحا كجرة كبركي إبليس وكلا لمدة الدون إلهي وحو أبوري كبر بدن إبليس يا قراني هذه امتحان لقوة دي ما قرانيسي نفط وحا كجرة كبركي إبليس نفط وحا كجرة حاسد كيو سبيي قابيل وحا لا يداهضا دي مقعنا إلو مشيقنا هابيل يا قابيل بيها إنه الماء آدم بيها إنه يتشرين وحقيقة قرآن كان لك ورمي حسد كانوا ودعي لكن مقعوا ما قابيل يا هابيل بوها والله أعلم حسد كي قابيل با كجرة ولا الكي هابيل وحاسدي أي نفط كجرة نفط بن آدم كي مركا أمارته بالسوء وحا كجرة عناد كي مضحضي كي قوم كي لهي وهلاقي إعاد لورنشري وحا كجرة قوقي
ay markaasi qooqeen ay markaasi xadgudbeen kuwii la odhan jiray markaas Thamuud waxaa ku jira markaa dhiiranaantii Numruud ilaahiisa uu ku dhiiraday waxaa ku jira isla weynidii iyo isa sarraysiintii Fircoon uu yidhi muxuu yidhi ana rabbukum al-a'laa buu yidhi rabbigaan idinka sarrayn baan ahay naftana maxaa ku jira isa sarraysiintii iyo isla weynintii Fircoon oo kale ku jirta nafahan inaad baqtiisaabaad doonaysaa waxaa ku jirta cudwaankii iyo cadowtooyadii qaaruun oo kale xishood darradii haamaan waa labadii wasiir ee Fircoon iyo waxaa ku jira sheekhii la odhan jiray banu Israa'iil ka mid ah reer Yahuudeed Balcaam la odhan jiray inta Ilaahay Quraanka baray haddana ka insilaaxay ka baxay ee Ilaahay masalka uga dhigay ayga markaasi masalka uga dhigay waxaa kaloo markaa nafta ku jira xeeladii Yahuudu ay sameeyeen asxaabu sabti kuwii la yidhi markaasi ha ugaarsanina maalinta iyada ah ee sabtida ah ee laakiin ugaarsaday ee xeeladu la yimi waxaa ku jira cisyaankii uu sameeyey wariidkii reer Cabdimalik ee boqorka ahaa ee faasiqa ahaa akhlaaqdiisii oo kale ku jirta waxaa ku jira jahligii abi jahal jaahilnimadiisii oo kale nafta ku jirta waxaa kaloo ku sugan akhlaaqda markaa min akhlaaq albahaa'im xayawaankay la akhlaaq tahay naftan xumi waxay leedahay markaa mamanaanta tuka raqarka weligaa maaragtay bini'aadamku miyaanu sidaa ahayn markuu beesadaha adduunyada raadinayo meel waxyaaliin iyo lufluf yar uu arkay iyo dhuux yar uu meel ka dhuuxayo tuka weligaa maaragtay iyo raq iyo neef la qalay dushiisa uu ka dul waaqwaaq leeyahay dabcigaasay leedahay tukaha waxa ay leedahay mamanaanta ayga bahalka ayga la yidhaahdaa urta siniinta waxa la yidhaahdo dhulka hadday 2 mitir hoos u dhaafto wuu qodayaa meeshaas uusan kala raacaya markaa mamanaanta ayga oo kale ay leedahay naftu waxay leedahay oo kale waxa la yidhaahdo markaasi rucuunadii doqonnimadii iyo jilicsanaanta uu leeyahay iyo isla maleekhinta bahalka la yidhaahdo daawuska itiraas Soomaalidu waa la daawadaa waxay kaloo la dabci tahay daraa'ada bahalka la yidhaahdo jucalku waa bahalkan xayawaankan udaha ama xayawaankan markaa saxarada bini'aadanka markaa wadwada kaasoo kale la dabci tahay meel xun oo qurun oo nijaaso xaaraana bay ku jirtaa nafta sida bahalkaasoo kale markaas weeyaan waxay kaloo la dabci tahay xuquuq dabbi waxa weeyaan caaqnimada ma taqaanaa bahasha la yidhaahdo afariya adilayda bahashaasi wax ka qaraaba goysnimo xumi ma jirto wax badan bay dhashaa ilaa 40 mid bay dhashaa markay dhashaba way dilaysaa midka soo dhacaba way cunaysaa midka soo dhacaba way cunaysaa midka ka soo dhacaba way cunaysaa baasha afariyaadilayda leedahay waxa laga yaabaa tirada ay dhashay faraha badan inay xabad kaliya farxad ku baxsato xabad kaliya xabada Ilaahay ugu talagalay inay taranteedu ku joogto ayaa farxad ku baxsata waxa kale oo dhan dib ay cunaysaa taasi waxa markaasi nafta bini'aadanka oo kale ayaaray waxa kale ay dabci u leedahay naftani xaqdiga iyo cadaawad hoose awrus cunaysa weligaa maaragtay wax ka cadaawad badan ma jiro naftu kaga jaray wax saamaxadana ma gelayo cadaawadana awrtay kala mid tahay waxay kaloo leedahay baashu way booto badan tahay sida bahalka harimacadka la yiraahdo waana dagaalyahan markay adduunyo aragto sida bahalka libaaxa la yiraahdo uu war qabsanayo kale taasoo kale la dabci tahay waxay faasiqnimada ka gaadhaa bahalka la yiraahdo fuwaysiqan la yiraahdo jiirka Soomaad arag mufsidka ah ee guriga baabiya baashu waa guryafan dhinaca markaad eegtana waxay kaloo kala mid tahay xagga khubsiga iyo qurunimada abeesada dabciga abeesadana way yeelatay naftaasi waxay kaloo leedahay cabasul qird bahalka daayeerka ciyaartiisa ha kubad been ciyaarna tirs been ciyaarna kaleena kubada kale ka ciyaarna adduunada lucbada bal adigu arag waa naftii xumeyd weeyaan soo ma aragtid waa waxa maanta dhalinyaradeena iyo dumar iyo caruurba markaasi lagu maaweeliyay dhinacaana daayeerkay kala markaa cabas iyo dheeldheel tahay oo baashu waa qaribantii waxay kaloo leedahay dabci leedahay jamcu namli ururin baashu waa ururin badantay shirin dirham maro beesad kan adduun waxbay ururinaysa quraanjada maarag saxarka haruurka qoriga balaayada jinka quraanjadu mid waliba wuxuu loo ordaya godkan uu ku ururinaysa godku ma buuxsama miya jamciga iyo ururinta quraanjada kale ay leedahay baashu waxa ay leedahay xeelada iyo makriga dacwada waliga mara baraar ma raacday waliga dacwada ka ilaali ma lagu yiri afartii jeey kaaga imanaysa inta kulba geed isku tooso bay hadan jeeda kale kaaga imanaysa xeelada dacwada kale ay leedahay baasha nafteeda doqon tahay wana khifatul firaash
fudaydkana waa balanbaalis naftu een xagga hurdada iyo hurdo jacaylkana waa waraaba wax ka hurdo jecel waraaba banaan hurdo arki maysid baalku hurdo weey god aan la gaadhayn buu galaa lean haddii kale hurdada loogu imanaya waka en iyo waliba waxyaabo kale oo fara badan oo akhlaaqa haddaba maxaa naftaa ka suulin karaad kula dagaalamaysaa waxa weeyaan riyaada wal mujaahada nafta inaad la loolanto tarbiyadayso tababarto oo aad la jihaado ayaa akhlaaqda ka mayri kara adiguna aad kaga badbaadi kartaa sharkaasina uu ka suulayaa wuxuu leeyahay imaam ibn qayyim markale saadul macaadki ayuu ku sheegay masalada gabagabow tahay wuxuu yiri markaa ka waramayay fasli ku saabsan maratibul jihad kitaabka saadul macaadki la yiraahdo wuxuu kaga waramay darajooyinka koowaad labaad saddexaad afraad ee uu leeyahay jihadku taa jihadka faraha badan uma jeedne nafta kamid ah jihadka nafta kamid ah inteedan gaal iyo munaafiq iyo shaydaan iyo isu imanin horta nafta la soo jihaad haddaad iyada ka gol roonaato oo aad ka guulaysato cadowga kale waad la jihaadi kartaa jihaadka naftu waa 4 martaba ama 4 darajo weeyaan darajada koowaad inaad nafta la jihaado ala tacallumul huda hanuunka waa cilmiga naafica inaad kula dadaasho diin alhaq iyo diinta xaq ah oo amalkii saalix ah الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به ليبان يقولي نرى أمسغنان الدنيا يا آخرة إلا إنه قفك هنونك كل دالة نفتي سمويان لكن مركو هنونك وايو أو علم جيسي كتغو شقيت في الدارين دارت الدنيا دانا واقول دريسة آخرنا وخسارتي مرتبط الله بعد النفط اللي قلتش هذا وحويا نقول له إيمانكو أن يجاهدها على الدعوة إليه علمك برتي وين تدخل باقه وجهادك نفطه علمي ما تقانا او اسكا مدو ما هدي دي ما برتي يا كتاب يا سنه او هشيغ انه عيد هبرين يقدر دو ما عيدنا كيري ادينا كو افعميس ادينا ما كو افعيس وانه دعوده كل ددالو iyo barida cilmigan cid aan aqoonin hadii taa la waayo miya kana min alladina yaktumuna ma ansala Allah min alhuda wal bayinat hadii laga waayo wuxuu kamid noqonayaa jumlada maalinta qiyaamaha xakame oo naara qowlka loo gelinayo waa kuwa cilmiga ilaahay uu soo dajiyay iyo hanuunkii iyo bayinaadkii iyo xujooyinkii qariyo daboolka saaray goodigaasi uu yeelanaya wala yanfa'u ilmu ولا ينجيه من عذاب الله علمي ما لا وحبا كوما تريسو عذاب لنا كابد بادين ميسو حدانا انت ادو دد براتي ددكنا aanad barin dadka kalena aanad barin waxa kale markaas aad kula dadaalaysaa waxa uu yahay ay jaahidaha ala sabr وانا تقف marka nafta sabirka barto ala mashaaq da'wa ila Allah wa adal khalqi hadaa dadka dacwadu ugu baaqayso waa in lagu dhibo dadkana oo dhibaato kaaga timaado lagu caayo lagu shiido day lagu xidho iyo in lagu diloba waa suuragal in lagu hanjabiyo in lagu marka taxtaxaasho iyo lagu yara gabaara gurdeeyo waa meel sokee ama meel dhow halkaasi mar bay ruurin tagaysaa oo laga takhaluso ay noqonaysaa laakiin sabir bay u baahantay anbiya ayaa dacwada loo dilay loo eriyay loo cayriyay loo dhibay waxa soo dhan yatahammal daari kulli lillah alla tartiib ugu sabraya ugu dul qaadanaya wayda istakmala hadhihi almaratib markuu maratibta marka dhameystiro saara min ar-rabbaniyin wuxuu kan mid noqonayaa kuwa rabbaniyiinta la yiri waa rabbaniyin salafkii saalihaha waxa uu leeyahay imaamkani mujmacuun على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا سلفك waxay yiraahdeen xaq ma laha ninka caalimkii in lagu magacaabo rabbani waa rabbeeya Soomaa dadka barbaariya saqaarul ilm ku rabbeeya lagu magacaabi karo hatta yaarif alhaq wa ya'mal bihi wa yu'allim jeer uu xaq garto oo ku amal falo oo uu baro faman alim wa amil wa 'allam fadalika yud'a 'aziman fi malakuti samawati qofka cilmi yeeshay amal la yimaada ee bara wixii uu bartay ku amal falay kaasi ayaa loogu yeerayaa malakuutka sare ee samooyinka waxa loogu yeerayaa cadiim rabbaniya
kii weynaa ee rabbaaniga ahaa baa la odhanaya walaalkayga muslimka ahow walaashayda muslimadda ahey waxaa lagama maarmaana oo aan kugula dardaarmaya adiga iyo naftaydaba inaad markaa naftaasi xun la dadaasho oo aada la jihaado jeer aad ka guulaysato maxay natiijadu noqonaysaa inay naftu hagaagto markaasi oo ay noqoto naftaadu naf oo degan oo xasiloon oo hoggaansan oo hoggaan dabacsan oo naxariis badan oo karaamo badan oo sharaf badan oo dahaaro badan oo muuminada oo aamina oo xasiloon oo ilqabowsata dabeedna markay naftu ka baxdo waxaa loogu khatimayaa nidaagii aynu xagga hore ku soo akhrinay yaa ayatuha annafsu lmudma'inna irjicii ilaa rabbiki raadiyatan mardiya fadkhulii fii cibaadii wadkhulii jannatii nafyahay mudma'inada muuminada ee xasiloon ee degan ee aaminada ahi waxaa la leeyahay laabo de rabbi bay u imanaysaa waxaa lagu leeyahay adiga oo raadiya ada rabbi bay raalli ka noqotay abaalmarin iyada oo la raali geliyey naciim baa lagu raali geliyey waxaa la leeyahay gal ambiyadii iyo maxaan ku dhaha sidiiqiintii iyo shuhadadii iyo saalixiintii jumladaa raac oo gal jannadan markaa ilahay wuxuu leeyahay jannadayda addoommadayda intaad ku biirto jannadayda gal haddee rabac la raaco iyo rafiiq markaa lala rafiiqo kaasaa ugu wanaagsan maalinka dambe ee naftu markaa ay baxaysana nidaagaasaa loogu yeedhaya sakaraadkuna wuu imanaya geeriduna wuu imanaysa wajaءat sakratu lmowti bilxaq haddii xaq iyo xaqiiqo markay la timaado midna taasaa loogu dhawaaqaya midna cadaab baa loogu bishaarinaya oo la tusaya halkaa waxaynu doonaynaa nufuusta midda ugu markaa khatarsan aynu la dagaalamayna waa taa xumo faridda badan leh ee xumo faridda badan leh ee isbedbedelka badan leh waanu ka takhalusaynaa waanaynu ka dawoobaynaa waanaynu ka nabadgelaynaa sharkeeda naf quman oo dayibadoo markaasi raadiyadoo murdiyo ah ayaynu doonaynaa inaynu ku guulaysano dee cadowgeenna waan ka guulaysanay dad naftaada ka guulaysato cadowgaaga waad ka guulaysatay وبالله تعالى توفيق سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاه الله خير.